middaani waa mucjiso ka yaabisay dad badan oo caalamka kan ku nool waxayna ka dhacday dalkaasi Urdun. waa wiil arday oo dalkaasi u dhashay oo dafirsan jiritaanka Ilaahay, hase ahaatee jawaabta Ilaahay xaggiisa uga timid waxay noqotay mid degdeg ah. qisadaasi waxay ku saabsan tahay wiilkaasi wixii ku dhacay ayaan halka kan idinkugu soo gudbinaynaa saan uga cibro qaadano. meelaad joogtaan baa Allah idin xafidaa, si fiican u dhagaysta. arrinta tani waa arrin khatar ah. midkani waa mid Ilaahay dafiray jiritaankiisa, hase ahaatee waxaa la tusay tabartiisa oo waxaa ku dhacday arrin mucjiso ah oo degdeg ah. waa qiso dhacday middaani waxayna ka dhacday wadamada carabta mid ka mid ah, gaar ahaan dalka lagu magacaabo Urdun. waa wiil arday jaamacadeeda wuxuuna dhigtaa kulliyad ka mid ah kulliyadaha jaamacadda. wiilkani wuxuu ka dhex istaagay galaaskii uu dhiganayay asagoo saacadiisa haya oo dhahaya hadduu alla jiro saacad kadib hay dilo naftana hayga qaado. bal aynu aragnay jiritaanka Ilaahay iyo in kale. waa dhacdo cajiiba oo ka yaabisay ardadii galaaska iyo guud ahaan jaamacaddii, macallimiintii iyo maamulayaashii kulliyaddaas. saacaddii u qabsaday daqiiqadaheedii baa socda. markay dhammaatay saacaddii ayuu ardaygii boodbooday oo wuxuu ku yidhi saaxiibadiis, soo sidaan idiin sheegaya ma ahan, ma Ilaahay baa jira? sultaan Ilaahay u awood sheegtay ma wax iga qabto? hadduu alla jiri lahaa soo ima dili lahayn, soo aniga wax igama qaban lahayn. saacaddii waa dhammaatay, wakhtiga aan u qabtay waa dhammaaday, waxna ma dhicin. marka in Ilaah jiro akoonkan abuuray waxba kama jira ayuu yidhi asagoo qoslaya, kaanama aad moodidba inuu goolkii dhashaday. ardadii waa qaybsameen, qaari waa ka sii jeesadeen, qaarna shaydaan baa iyagiiba waswaasiyey, qaarna waxay dhaheen Ilaahay wuu kuu kaadinayaa xikmad daraaddeed, laakiin waxbuu kaa qaban doonaa. qaarna madaxay ruxeen ayagoo asaga ku jeesjeesaya. wakhtigii galaaska waa dhammaaday, qof walbana gurigiisii ayuu jihaystay. wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu aaday qoyskiisii iyo gurigii meeshuu ku noolaa isagoo faraxsan, oo aad moodaysidba inuu keenay daliil cad oo caqliya kaasoo uusan qofna oga hormarin oo tusaya inuusan Ilaahay jirin, isagoo moodaya inuu ku guulaystay inuu dadka ka dhaadhiciyey inuu insaanku yahay mid xisaabaysa ka dambayn. wuxuu moodayay inuu goolkii dhashaday ahaa inuusan rabbi jirin, addoommahaanaan la soo celin doonin, lala xisaabtami doonin. markuu gurigii tegay wuxuu arkay hooyadiis oo u diyaarisay cuntadii, ilaa uu arday ka maqnaaye. waalidkiis miiskii cuntada geeska ayuu ka fadhiyaa, wuxuuna sugayaa wiilkiisa ka imaanaya jaamacadda. wiilkii markuu guriga soo galay wuxuu aaday dhinaca faraxalka iyo meesha weji dhaqa loo yaqaano si wejigiisa iyo qacmihiisa uu mayro, kadibna uu ku qallajiyo istiraasho. markay xaaladiisu halkaa marayso ayuu dhulka ku dhacay asagoo meyda, dhaqdhaqaaq ma lahan. waa meyd, naftii baa ka baxday, lama garanayo sababka. sikadiisa ayuu u dhintay. waa wiilkii qoslayey ee taagnaa meesha faraxalka iyo wejidhaqa ee wejigiisa dhaqayay, kadibna marada isku tirtirayay asagoo aad moodidba inuu helay maanta guushii uu raadinayay in badan. dhakhtarka loola cararay, waxaana la xaqiijiyeyba daqiiqadii ugu horraysay inay naftu ka baxday. dhakhtarka warkii uu soo saaray wuxuu noqday in geerida wiilkaani ay sabab u ahayd biyihii ku waji dhaqanayay oo qayb ka mida dhagihiisa ay galeen. taas ayaa dhakhtarka wuxuu yidhi ayaa sababtay wiilka kan geeridiisa. sida aqoon ahaan la og yahayna dameerka ama xayawaanka noocaasa Ilaahay idinkuma matalee. haddii dhagihiisa ay biyo galaan wuu dhintaa. sidii dameerkii baa Ilaahay u dilay midkaan dafiray jiritaanka alle. alle waa diiday oo aan ka ahayn midkaan dafiray jiritaanka alle inuu dhinto dhimasho xun oo ah sida uu u dhintay dameerka. biyihii ku waji dhaqanayay ayaa dhagaha ka galay, taas oo ka shabahay dameerka. qof walba oo naftiisa iyo xaqa Ilaahay dafira, wixii loo diray oo Ilaahay ku waajib yeelana aan ka soo bixin, xaaladiisu sidaasay noqotaa. waana sida Ilaahay qur-aanka in badan oo ka mid ah ku tilmaamay suuratul Acraaf iyo suuratul Jumcaba. waxaad tidhahdaa Ilaahay baan u qirayaa xaqnimo iyo jiritaan iyo cibaado inuu igu leeyahay. waxaan kaloo qirayaa ambiyada Ilaahay oo rumaysanahay iyo kii lagu khatimay Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay khaatumada ha noo wanaajiyo dhammaanteen. awood iyo xeelad ma lihin oo aan ka ahayn midda alla nagu taageerayo. aad baad u mahadsantihiin. baaraka allaahu fiikum.